رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ولو waxaan dhexda uga jirnaa kitaabkii xusn muslimka al-adkaar xususkii waaye bacda asalaami taa waa intaan la salaamo noqsanin ka hor tanna waa marka laga salaamo noqsado min asalaati salaada xaggeeda waxaad dhahaysaa astakfiru allaha 3 mar allahuma anta asalaamu wa minka asalaamu tabaarakta ya da aljalaali waalikraami 3 mar astakfiru allaha ilaahayow ii dembi dhaaf allaahuma anta asalaamu ilaahayow alla salaam ahoo badbaaday oo nabadgalay ayaa tahoo nusqaan iyo ceeb oo dhan ka nabadgalay wa minka asalaamu salaamta iyo badbaadada xaggaaday ka timaadaa tabaarakta khayrkaagaa batay yaa da aljalaali waalikraami midka jalaalkii ikraamkii karaamada iyo deeqda u saaxiibka ahow laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir ayaad dhahaysaa haddana allaahuma laa maanica ilaahayo wax mancin kara oo diidi kara maba jira limaa actayt waxaad diibtood bixisa walaa muctiya wax bixin karaa male limaa manacta waxaad mancisoo diiddo walaa yanfacu wax uma tarta daljaddi mid hodantinimo iyo deeq iyo nasiib u saaxiiba minka aljaddu deefta iyo jadka iyo qadiga kulli xaggaaguu ahaaday laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir ayaad dhahaysaa hadan waa salaadta ka gadaa laa xawla walaa quwata ila billaah xeelad iyo awood aan caqli iyo diinta ugu raacna melihin ilaa inaad nagu saacido maahine laa ilaaha ila allahu walaa nacbudu ilaa iyaah lama ahe ilaah kale ma jira mana caabudayna ilaa asaga maahana walahu nicmatu nimco ayaa u sugnaatay ilaahay walahu lfadl fadli asagay u sugnaatay walahu hanaa'u alxasani iyo ammaan wanaagsan laa ilaaha ila allah mukhlisiina lahu ddiina walow kariha alkaafiruun annagoo u khaalis yeelayna ilaahay diinkii hoggaansanka kaafiriinta haba karaahsatee waxaad dhahaysaa subxaana allah walxamdu lilaahi wallaahu akbar 33 mar waxaad ku boqolaynaysaa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. waxaad kaloo akrinaysaa suuratu ikhlaas bismi illaahi araxmaani araxiimi qul huwa allahu axad allahu samadu lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad. waa markay dhaheen sif lanaa rabbaka rabbigaaga noo sifay dhagax miya dhayman miya dahab miya noo sheegma muxamedow ilaahaaga muxuu ka samaysan yahay. ilaahay baa soo dejiyey qul dheh yaa khayru khalqi illaah huwa allah asagu waa ilaahay axadun waa mid keligiis ah allahu samad ilaahay alla samad ah oo sayid ah waaye ama samad waaye alla umuuraha loo bandhigto axwaajta iyo dhibaatooyinka iyo dantana loo sheegtoo la dhaho ilaahayow dhibkaasaana saarana naga qaad. lam yalid wax ma dhalin walam yuulad lama dhalin walam yakun lahu kufuwan axad kufu dhigmaana ma jiro. waxaad kaloo akrinaysaa bismi illaahi araxmaani araxiim qul acuudu birabbi alfalaqi min shari maa khalaqa wa min shari gaasiqin idaa waqaba wa min shari nafaataati fi lcuqadi wa min shari xaasidin idaa xasada. qul dheh acuudu waxaan magan galay birabbi alfalaqi allaha wax kala dilaaciyo ayaan magan galay min shari maa shay shartii ayaan ka magan galay khalaqa uu abuuray wa min shari gaasiqin habeenka shartiisaan ka magan galay idaa waqaba marka uu soo gala ama uu mugdiyoobo wa min shari nafaataati kuwa wax afuufa fi lcuqadi gunudaha dhexdooda waa sixirka iyo waxyaabaha markaa lamidka ah. wa min shari xaasidin xaasid shartiisa ayaan ka magan galay idaa xasada. qul dheh acuudu birabbi nnaasi waxaan magan galay dadka rabbigooda meliki nnaasi boqorkii dadka ilaahi nnaasi ilaahii dadka waxaan ka magan galay min shari alwaswaasi midka wax waswaasiye shartiisa alkhannaasi dhuumashada badan gadaaluu istaaga badan alladii kaasoo yuwaswisu fii suduuri nnaasi
dadka laabahooda waswaasiye oo min aljinnati waannaasi jinni iyo insi ah bacda kulli salaatin salaad kasta gadaalkeeda. intaa ka gadaal waxaad akhrinaysaa allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum laa ta'khuduhu sinatun walaa nawmun waa aayatulkursi. allahu ilaahay laa ilaaha ilaah ma jira ilaa huwa isaga maahane alxayu alqayuum alla xayi ah oo nool waayo noloshiisu ay daa'imtahoon dhammaanayn. alqayuum alla maamuloo u taagan waaye koonkiisa. laa ta'khuduhu ma qabata ilaahay sinatun gamaayo walaa nawmun iyo hurdo weynba. lahu waxaa u sugnaatay maa fi samaawaati wamaa fi lardi samaawaadkii arlada waxaa ku sugan ee man da ladii kee waayo midka yashfacu ka shafeeci kara cindahu ilaahay agtiisa ma jira ilaa biidnihi ilaa ilaahay idinkiisa maahane. yaclamu wuxuu og yahay maa bayna aydiihim waxa dadka hortooda ahaadii wamaa khalfahum walaa yuxiituuna bishayin shay ma koobi karaan oo min cilmihi cilmigiisa ilaa bimaa shaaa wixii asaga uu doono maahane. wasica wuu ka waasic noqday kursiyuhu ilaahay kursigiisa alsamaawaati waalarda samaawaadkii arlada ayuu ka weyn yahay. walaa ya'uuduhu mana dhibta ilaahay xifduhumaa ilaalintooda. wa huwa alcaliyu alcaliim alla sareeya oo weyn waaye kursigan sidiisaa loo dhaafaa. ilaahay kursi ayaa u sugnaaday sidiisaa loo aaminaa. waa istawaha oo kale waa shay macluuma oo haabit oo kitaabkii axaadiista ku sugan sidooda in loo aaminoo loo mara ay waajib tahay. kursigu suu u yaalaa iyo maxaa laga sameeyey alwaax miya iyo kulli mamnuuc waaye su-aasha waa la aaminaa sideedaana loo gudbaa lama yaqaana cilmigeeda ilaa ilaahay maahana subxaanahu wa tacaala. caqiba kulli salaatin ayaad kursi akhrinaysaa salaad kasta gadaasheeda. waxaad kaloo dhahaysaa laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah ilaahay meehee alla kale ma jira xaqnimo lagu caabudo keligii asagoo ahoon shirki lahayn. lahu lmulku mulki ayaa u sugnaaday ilaahay walahu alxamd mahadna asagaa iskale. yuxyi waa nooleeyaa qofkuu doono wayumiitu waa dilaa qofka uu rabo. wahuwa calaa kulli shayin qadiir shay kastaa waa kari karaa 10 maraatin 10 mar dheh bacda salaati almaqribi waasubxi salaada subxeed iyo salaada maqribkaa ka gadaal 10 mar ayaad dhahaysaa laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wayumiitu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. intaa ka gadaal waxaad dhahaysaa allaahuma inii as'aluka cilman naafican warisqan طayiban wacamalan mutaqabalan. waa bacda asalaami min salaati alfajri waa salaada subax marka laga salaamo noqsada ka gadaal. allaahuma inii as'aluka ilaahu waxaan ku su'aalanaa cilman naafican cilmi waxtar lahoo xumaan naga reebo khayrka na tusiya janno aan ku gaarno cadaabka naga teeda. warisqan طayiban risqi طayiba ayaan ku su'aalanaa ha badnaada ha yaraada waa risqi xalaal ah. wa camalan mutaqabalan iyo camal la aqbalee camal fara badan oo la qabtoo lagugu soo tuuro faa'iide uu leeyahay markaa ma laha. ducaau salaati istikhaara waxaan gelaynaa salaada lagu magacaabo salaadii istikhaarada ducadeeda. istikaarada waa salaad la tugto qofku markuu arrin damco. matalan waxaad damacday inaad safarto waxaad damacday inaad guurto waxaad damacday inaad guursato dadka wax faaliyaha u tegin haddii naagtaanaan rabaa ii fiiriyo burjigeeda ma ii dhalaysaa ma samay waa xaaraam waana mamnuuc ilaahaaga la tasho maxaad samaynaysaa marka. qaala jaabiru jaabir ibni cabdillaahi wuxuu dhahay radia allaahu canhuma asi io aabiiba allah ka raadi noqdee kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam yucallimuna alistikhaara istikhaarada ayuuna beri jiray fi lumuuri kulliha umuuraha dhammaantood inaanu istikhaaraysana kamaa yucallimunaa assuurata min alqur'aani sida uu noo beri jiray suurad qur'aanka ka mid ah sida qur'aanka suuradaheeda uu noo beraayay ayuu istiqaarada noo beri jiray nebiga. istiqaarada inay ahmiyad weyn leedahaad ka fahmaysaa. yaquulu wuxuu dhahaya nebiga idaa hama hadduu damco axadukum axadkiin bilamri amar hadduu damco falyarkac rakcatayni 2 ragcadood ha tukado. sharad qabri ha ka galaa maanta taala haddaan arrin damacna hore shiiqa in sharad laga galo waayo. rasuulkuna wuxuu leeyahay falyarkac rakcatayn boqorkii ku uumay hor istaag oo waxba aan ka caajisaynin min gayri alfariidati oon waajibka ahayn. waa 2 ragcadood oo sunno ah. uma liyaqul intaa ka gadaal ha dhaho allaahuma ilaahayo inii anigu astaqiiruka waxaan kaaga khayr dalbanayaa bicilmika cilmigaaga
markaa labadii ragcadood tukato ducadan ku ducayso waa markaa salaada dhamaysa kadib uma liyaqul ka gadaal ha dhaho allaahuma ilaahayow inii anigu astaqiiruka waxaan kaaga khayr dalbanayaa bicilmika cilmigaaga wa astaqdiruka waxaan kaaga qudrad iyo awood weydiisanaa biqudratika qudradaada iyo awooddaada ayaan kugu su'aalanaa wa as'aluka waxaan ku weydiisanayaa min fadlika alcadiimi fadligaaga cadiimka ayaan ku weydiisanayaa fa innaka taqdiru ilaahayow adigu waa kartaa walaa aqdiru ani ma karo xaaladan aan raba inaan sameeyo adaa awood u leh ani awooddeeda melihi daciif ayaan ahay antum nnaas yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa ila allah wallahu huwa alganiyu alxamiid tabarteeda adaa leh ani melihi wataclamu waad og tahay inay khayr ii tahay iyo inaysan ii ahayn arrintan aan raba walaa aclamu ani ma ogi wax aan kala ogahay ma laha wa anta callaamu lguyuubi qaybyaalkoo dhan caalimkoodaa tahay allaahumma ilaahayow in kunta haddii aad tahay waaba tahaye taclamu mid og ana haada alamr amarkaaneekana wayusamii xaajatahu dantiisu meesha ku magacaaba ana haada alamr meesha ku qoran tahay ayaad dhahaysaa ana haada nikaax guurkaan aan raba inaan galo safarkaan aan raba inaan galo tijaaradan aan raba inaan galo shaqadan aan raba inaan galo haddii ay ii tahay khayrun lii mid khayr ii ah ani fii diini wa macaashi wa caaqibati amri diinkayga noloshayda iyo ciribtayda dambaba ow amase qaala wuxuu yidhi nebiga caajilihi wa aajilihi arrintiisa kiisa soo degdega iyo kiisa daahaba hadduu khayr iigu jiro faqdurhu lii allow ii qadar wayasirhu lii ii fududay uma baarig lii fiihi ka gadaalna ii barakay duca qiimo badan waaye wa in kunta haddiise aad tahay ilaahayo waaba tahay taclamu mid og ana haada alamra amarkan ee kan ah sharun lii inuu shar ii yahay fii diinii wa macaashii wa caaqibati amri diinkayga iyo noloshaydii ciribtayda dambe ow qaala caajilihi wa aajilihi kiisa soo degdega iyo kiisa daahaba hadduu shar ii yahay fasrifhu canii ilaahayow iga iil wasrifnii canhu anigana xaggiisa iga iil arrintana ha ii keenin anigana yaan u tegin ilaahayow culays iga saar waqdur liya alkhayra khayrka ii qadar xaysu kaana meesha uu yahay uma ardinii bihi kadibna iiga raali noqo kadibna ilaahayow khayrkaa iiga raali noqo wamaa nadama ma nadaamoodo ma shallaayo man istaqaara alkhaaliqa qofkii khaaliqa istiqaaro u samaysta oo washaawara la tashada almakhluuqiina almu'miniina dadka makhluuqa ah ee mu'miniintaa la tashada watahabbata fii amrihi amarkiisa markaa ku sugta liannahu faqad qaala subxaanahu ilaahay wuxuu yidhi washaawirhum fi lamri mu'miniinta amarka kala tasha faidaa cazabta haddaad go'aan gaartood arrinkoosata fatawakal cala allah ilaahay talada u dhiiba subxaanahu wa tacaala adkaaru asabaaxi waalmasaa'i adkaartii ayaan ka gelaynaa meesha subax iyo galab la akhriya alxamdu lilaahi waxdahu wasalaatu wasalaamu calaa man nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaata shaksi laa nebiya bacdahu nebi aan gadaashiisa ka dambaynin waa nebi moxamede acuudu billaahi waxaan ka magangelayaa ilaahay min ashayطaani alrajiim waxaad akhrinaysaa allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm ilaa aakhirkeeda waa soo fasirnay waxaad kaloo akhrinaysaa bismi illaahi araxmaani araxiim qul huwa allahu axadun allahu samad ilaa aakhirkeeda waa soo fasirnay waxaad kaloo akhrinaysaa subaxdii qul acuudu birabbi alfalaqi ilaa aakhirka qul acuudu birabbi annaas ilaa aakhirka alaaa maraad ayaad markaa akhrinaysaa intaa ka gadaal waxaad dhahaysaa asbaxnaa wa asbaxa almulku lilaahi waa markaad waa beriisata asbaxnaa subxeesanay wa asbaxa almulku mulkiga iyo maamulka iyo madaxtinimada lilaahi bay la waa beriisatay subxaana wa tacaala weli maamulka ilaahay baa iskale lagama qaadin mana la afgebinin mana la afgebin doono subxaana wa tacaala wa asbaxa almulku lilaahi walxamdu lilah ilaahay baa mahad iskale laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir rabbiyow as'aluka waxaan ku su'aalanaa khayra maa fii hada alyowm
yoonkaan ee kana khayrka ku dhex jira wa khayra maa bacdahu khayrka ka dambeeya wa acuudu bika allah waxaan kaa magangelayaa min shari maa fii hada alyawmi yoomkaan ee kana shartiisii wa shari maa bacdahu sharta ka dambaysa rabbiyow acuudu bika waxaan kaa magangelay min alkasali wahsigaan waa wahsi diinta laga wahsado waa wahsi salaada laga wahsado iyo wax walba oo khayr ah ileen haddii nala dhaho kaalaya salaada dukada waa ka wahsanaa haddii sheeke iyo waxyaabo kalena loo waca iyo meelo kalena waa u orodnaa marka acuudu bika min alkasali waa wahsi wa suu'i lkibari odaynimo weyn oo xun ayaan kaa magan galay kibar waa soo tilmaanay waa da'gabow ah oo xun heer ay dadku ku nacaan ee ku dhaan gacalkaa geeriya loo toogaa inuusan ilaah ku gaarsiinin 3 iyo 60 sano ayaa lagu fasiraa ilaa nebiga ilaahay ayuu ka magangeli jiray sidaa darteed da'duu ku dhintay waa 63 sano rabbiyow acuudu bika waxaan kaa magan galay min cadaabin cadaab oo fi naari naarta dhex ah iyo wa cadaabin fi lqabri cadaab qabriga dhexdiisaa waxaad kaloo dhahaysaa allaahuma bika asbaxnaa wa bika amsaynaa allow adaan kuu subxaysanay adaanana kuu galabaysanaynaa wa bika naxyaa adaan kuu noolnahay wa bika namuutu adaan kuu dhimanaynaa wa ilayka nushuuru aruurka iyo kulankana xaggaaguu ahaaday waxaad kaloo dhahaysaa allaahuma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta adahayow rabbigay ayaa tahay adi meehee alla kale ma jira khalaqtanii waad i uuntay wa ana cabduka ani addoonkaagaan ahay wa ana calaa cahdika aniga ballantaadaan ku jira iyo wa wacdika yaboohaaga ma statactu intaan awoodi karo acuudu bika ilaah waxaan kaa magan galay min shari maa sanactu shartii aan sameeyey abuu'u laka waxaan ku ictiraafaya oo kuu qiranaya adiga binicmatika nimcadaada calaya korkeyga aad yeeshay ayaa rabbow ku ictiraafayaa wa abuu'u waxaan kaloo kuu qirayaa bidembi dembigeyga ilan dembiilan ahaye fakfir lii ii dembi dhaaf fa innahu laa yakfiru dunuuba maxaa yeelay dembiga ma dhaafa ilaa anta adiga maahine baadari dembi ma dhaafa qabri laqad waxaad waxgeysay iyo waxyaabo kale aad geysana dembi makuu dhaafa sidaa darteed adi meehee cid kaloo dembigayga dhaafi kara ma laha axadda kiniisad ma aadaay oo baadariga dhihi maayo ii dembi dhaaf ileen waa addoon anoo kale ah aduu kuu baahan yahay dembi dhaafkaagaan baahi u qabaayo fakfir lii ilaahow ii dhaaf fa innahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta adi meehee cid kalena dembiga ma dhaafo gobollada qaarkoodna inta siyaarada la gaaro qofkiiba neefkeenuu dhaa marka la khudbeeyo dembigooda waa la dhaafay hala kala dareero waayo xaaladda noocaasi waa been allaahumma ilaahayow innii anigu asbaxtu waan subxaystay ushhiduka waxaan markhaati kaaga dhigayaa wa ushhidu waxaan kaloo marag uga dhigayaa xamalata carshika malaa'igta xarshigaaga xambaarsan iyo wa malaa'ikataka malaa'igtaadaba iyo wa jamiica khalqigaaga oo dhan annaka anta allahu laa ilaaha ilaa anta waxdaka laa shariika lak wa anna muxamedna cabduka wa rasuuluka inuu yahay 4 maraatin 4 mar ayaad dhahaysaa waxaad kaloo dhahaysaa allaahuma maa asbaxa bii ilaahayo wixii ani igu waabariistay anoo haysta oo min nicmatin nimco ah ow biaxadin min khalqika ama axad khalqigaaga kamida wixii nimco ay haystaan fa minka xaggaaga ayuu ka yimid waxdaka keligaa laa shariika laka adoon shirki lahayn falaka alxamdu adaa mahad iskale walaka ashukru shukrina adiguu kuu sugnaaday allaahuma caafinii ilaahayow cafi fii badanii badankayga caafimaad iisii jirada iyo cudurka iga batay axadi caafin karaa male allaahuma caafinii fii badanii ilaahu badankayga iyo caafi si aan kugu caabudo oon salaada si fiican u tukado waaye ee maaha inaan cayaaro oon duntoon qabiil u dagaalamo allaahuma caafinii ilaahayow ii caafimaadtii fii samcii dhegahayga cudur ayaa ka batoo xan iyo fusig iyo heesan ku dhagaystaaye ilaahayow si aan khayrka iyo wanaagga ugu dhagaysta iyo diinka allaahuma caafinii ilaahuw ii caafimaadtii fii basarii indhahayga xumaanaan ku fiiriya waxaan rabaa inaan khayrka u adeegsaday iga caafi xumaantoo dhan ee iigu leexi wanaagga laa ilaaha ilaa anta adi meehee alla kale ma jiro allaahuma innii acuudu bika ilaah waxaan kaa magan galay min alkufri gaalnimo kufri aad ilaahay aqoonsan weyso rabbiga aad ka si weyso haddii lagu dhaho ilaahay aamin itus oo itaabsii aad dhahdo taasaan kaa magan galay ilaahayow iyo walfaqri fakhiirtinimo ayaan kaa magan galay faqrigu waa xun yahay heer diinta aad ilowda ayuu ku gaarsiinaa wa acuudu bika waxaan kaa magan galay min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa laa ilaaha ilaa anta adi ma ahee alla kale ma jira 3 maraatin waxaad kaloo dhahaysaa xasbiya allah laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakaltu wahuwa rabu alcarshi alcadiim 7 maraatin
7 mar xasbiya allah, ilaahayaa igu filan, ilaaliyo kale uma baahni, waardiye uma baahni, xasbigaygii kaafigayga waa ilaahay, laa ilaaha ilaa huwa, asaga meehee mid kale ma jiro, calayhi tawakaltu, korkiisa ayaan talada u dhiibtay, wahuwa rabu alcarshi alcadiim, carshiga cadiimkaa rabbigiisa waaye. allaahuma inii as'aluka alcafwa waalcaafiya, ilaahu waxaan ku su'aalanaa cafini caafimaad oo fi dunya waalaakhira, haddii jasadkaaga caafimaad lagu siiyo, sariirta aad ka soo kacayso, maca daalika dembigaaga la dhaafay, khayr adduun iyo mid aakhiraad haysataa. allaahuma ilaahayow inii anigu as'aluka waxaan ku su'aalanaa alcafwa waalcaafiyata oo fii diinii wa dunyaaya, caafimaad iyo cafin oo diinkaygii adduunkaygii wa ahlii ehelkayga ah iyo wa maalii xoolahayga. waayo haddii caafimaad lagaaga siiyo diinkaaga oo si fiican aad alle u caabudo, adduunkaaga aan lagugu dhibin, ehelkaaga waa xaaskaaga iyo ilmahaaga ay kuu wanaagsanaadaan, maalkaaga wax dhib iyo mashaakil uusan ku ahayn, xaaraan iyo ribo uusan ku imaanin, khayr adduun iyo mid aakhira lagu siiye. allaahuma astur cawraatii, ilaahayow cawro socotaan ahee cawradayda astur, wa aamin rawcaatii, cabsidayda ilaahayow amin geli. allahuma axfidnii min bayni yadaya, ilaah hortayda iyo xifdi iyo wa min khalfii wa can yamiinii wa can shimaalii, bidixdaydii midigteeda, wa min fawqii iyo korkaygaba. wa acuudu bicadamatika, cadamadaada ayaan ka magan galay, an uqtaala min taxtii, in hoos layga dafo. uqtaala min taxtii waxaa dhici karta in loola jeedo dhulgo wax la dhahaa jira, maca daalika inuu ilaahay dhulka kula gooyo ama dhulgariir yimaadood hoos aado. intaasoo dhan rabbow adaan kaa magan galay. allaahuma ilaahayow caalima alghaybi, qaybka caalimkoodii, washahaadati waxyaabaha xaadirka ahaw, faatira asamaawaati waalardi, allaha samaawaadkii arlada abuurow, rabba kulli shayin, shay kasta rabbiga iskale, iyo wa maliikahu, allaha mulkiyayow, ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaa anta, acuudu bika waxaan kaa magan galay min shari nafsii, naftayda sharteeda. naftaada waa sharoole, xumaan meehee wanaag ma rabto, baatil ma ahee xaq ma rabto, diin la'aan ma ahee diin ma rabto. sidaa darteed nafsada la ammaaratun bisuu, waa mid xumaanta dadka amarta. wa min shari shaytaan, shaydaankaa ka sii daran, shartiisa ayaan kaa magan galay. nafta iyo shaydaan hadday ishelaan way dhammaatay, iyo wa shirkihi, shirkigiisa, wa an aqtarifa calaa nafsii, inuu naftayda ku kelifo suu'an xumaan, ow amase ajurahu ilaa muslimin, qof muslima xaggiisa uu iigu jiida inaan xumaan ku falo, taasaan ilaahayow kaa magan galay. waxaad kaloo dhahaysaa bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi asamaa, wa huwa asamiicu alcaliim. bismi illaahi, ilaahay magaciisaan ku bilaabayaa, alladii allihii laa yaduru uusan dhibayn maca ismihi, magaciisa la jirkiisa, shayun shay oo fi lardi walaa fi asamaa, wax walbo ilaahay magaciisa lagu daraa dhib ma soo gaaro. wa huwa asamiicu alcaliim. radiitu biاllahi rabban وبالإسلام diina وبmuxamadi salى اllahu عalayhi wasalam nabiya 3 maraat. rabbinimo ilaahay baan raalli uga noqday, islaamkana diinna islaamka dheh, nebigana muxamedna nebinimo ayaan raalli uga noqonay. yaa xayu yaa qayuum, allaha xayiga ah oo nool ee taaganow, biraxmatika naxariistaada, astakiitu ayaan kugu gargaar weydiisana. aslix lii ii wanaaji sha'nii kullah, sha'nigayga oo dhan, walaa takilnii ha ii tala saaranin, ilaa nafsii nafsadeyda darfata caynin, hal ilbiriqsi ha idhihin ilaahayow hal ilbiriqsi waa kuu soo noqonaya ismaamul, ilan ma ismaamuli karo. mar walba xaaladeeda adiga ilaahayow la soco. asbaxnaa waan subxaysanay, wa asbaxa almulku lilaahi rabbi alcaalamiin. allaahuma ilaahayow inii as'aluka waxaan ku su'aalanaa khayra hada alyawmi, maalintaan khayrkeeda, fatxahu furitaankiisa, wa nasrahu guushiisa, wa nuurahu nuurkiisa, wa barakatahu barakadiisa, wa hudaahu hanuunkiisa. wa acuudu bika waxaan kaa magan galay min shari maa fiihi, sharta ku dhex jirtay, wa shari maa bacdahu, sharta markaa ka dambaysa. waxaad kaloo dhahaysaa asbaxnaa calaa fidrati alislaam wa calaa kalimati alikhlaas, waxaan ku waabariisanay fidrada islaamka, waa diinta islaamka, wa calaa kalimati alikhlaas, kelimada ikhlaaska waa tawxiidka, wa calaa diini nabiyina, nebigeenna diinkiisa muxamedin ahaa sala allahu calayhi wasalam, wa calaa millati abiina ibraahim, miladii aabbaheen ibraahim, xaniifan ka soo iilatay baatilka musliman, xaal muslim uu ahaa ibraahim. wamaa kaana min almushrikiin, mushrikiinta mid ka mida ma ahayn. subxaana allahi wabixamdihi 100 mara, 100 mar ayaad dhahaysaa subxaana allahi, ilaahay baa nasan, wabixamdihi mahadna asagaa iskale, laa ilaaha ila allah.
ilaahay mehe alla kale ma jira waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir 10 maraat 10 mar ayaad dhahaysaa oo maratan waaxida ama hal mar cinda alkasali haddii ay hurdo ku hayso ilaa waa salaad subax kadibe cinda alkasali mar allaala marka adiga waxoogaa wahsi uu kugu jiro hal mar iska dheh haddii aad firfircoon tahayna 10 maraat laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir 100 mara waa 100 mar idaa asbaxa qofka hadduu subxaysto subxaana allahi wabixamdihi ilaahay baa nasaan mahadna asaa iskale cadada khalqihi intuu abuuray wax la eg waridaa nafsihi naftiisa raadihashadeeda wazinata carshihi carshigiisa zinaha iyo culayska uu leeyahay iyo wamidaadi kalimaatihi kelimooyinkiisa fidnaantooda iyo badnaantooda in la eg ayuu rabbi mahadsan yahay nasahana yahay 3 maraatin ida ayuu dhahayaa qofka idaa asbaxa marka uu waabariista allahuma inii as'aluka cilman naafican warisqan طayiban wacamalan mutaqabalan idaa asbaxa wuxuu kaloo dhahayaa astakfir allah waatuubu ilayh astakfir allah ilaahay baan dembi dhaaf weydiistay waatuubu ilayhi xaggiisaan u soo noqday 100 mara fi lyowm maalintii 100 mar haddana wuxuu dhahaa acuudu bikalimaati illaahi attaamaati min shari maa khalaqa 3 maraatin idaa amsaa waa markuu galabaysta allahuma salli ilaahayow u naxariiso oo wasallim nabadgeli calaa nabiyina nabigeenna muxamedin ahaa 10 maraatin 10 mar وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم.